madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta kulan qada sharaf wuxuu u sameeyay xildhibaanadii baarlamaanka Puntland oo dhawaan xilka ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland doobada. Kulankaas waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash, gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdullaahi Yuusuf Jibriil Cawil, siyaasadaha xilka gudoomiyaha maxkamadda sare Nuur Cismaan Maxamed iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. Madaxweyne Deni ayaa markii hore wuxuu ka tacsiiyay dadkii dhawaan lagu laayay xarunta baarlamaanka Puntland, wuxuuna Ilaahay uga baryay inuu jannadii ka waraabiyo. Siciid Cabdullaahi Deni waa madaxweynaha Puntland ayaa wuxuu khudbad ka jeediyay kulankaas. Wuxuu sheegay in ujeedka kulankan uu yahay xoojinta wada shaqaynta golayaasha dowladda uuna hordhac u yahay kulamo badan oo wada shaqayn ah kuwaasoo noqon doona joogto si loo gaaro horumarka Puntland. hadaladii hogaamiye Denina waxaa ka mid ahaa: dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u malaynayaa sida madaxdii ugu horreysay ay sheegeen muhiimadda kulankan maanta sida uu loo fasiray weeye. waa kii labaad oo noociisa ah. waxaan rajaynayaa inuu hordhac u noqdo beyj cusub oo mas'uuliyiinta iyo golayaasha dowladda Puntland u furma, oo ujeedadiisu tahay in wixii loo igmaday ay isu kaalmaystaan. dabcan golayaashan waxaa loo igmaday inay bulshada u adeegaan. maadaama adeegayaal aan nahay, shaqo naga dhaxayso, waxaan ilaahay idinkiis rajaynaynaa inaan noqonno dad si dhow u wada shaqeeya. dabcan maanta waa qado iyo maalin nasasho, laakiin waxaa goor dhow haddii alla idmo aan ku xejin doonaa kulamo shaqo oo ay yeelan doonaan golayaasha dowladda si guud iyo si gaargaara. waxaan rajaynayaa inay u horeyn doonto golaha fulinta oo la kulmi doona golaha baarlamaanka aqalkiisa kula kulmi doona, una soo bandhigi doona waxyaabaha wasaaraduhu iyo herarka ay marayaan oo kooban. waxaan rajaynayaa inay hadda kadib wasiiradu inta aan iyaga la xisaabin ay iyagu hordhac u keenaan meesha wax u marayaan haddii Ilaahay idinka dhigo. dabcan marka laga tago golaha garsoorka, golayaasha kale waa golayaal siyaasiyiin. golaha garsoorku waa golihii dhinac marka laga fiiriyo la dhihi karo asalka ay dowladnimadu ku salaysan tahay oo cadaaladda haye weeye. waa golo ka duwan xeerarka iyo habka lagu soo dooro golayaasha siyaasiga. waa golo xirfad iyo aqoon iyo hufnaan iyo kriteriya gaara lagu xulo iyo khibrad. laakiin golayaasha kale waa golayaal siyaasadeed oo dadka ay matalayaan ka yimaada inta badan. waxaan rajaynayaa golayaashu isku duuban, haddii golo walba shaqadiisa uu garowsado sida dastuurka iyo qawaaniinteen ay noo dhigayaan, in la isqabsado way adkaanaysaa qiyaasteeda. waxaan kala saarayaa marka la wada shaqaynayo waxa yimaada oo af Soomaali hadda kuma garanaa ixtikaak. marka af Soomaaligu waaqan wuxuu noqon doono waa la isku dhacdhacaya xogaa iyo khilaafka farqi baa u dhaxeeya. hirig waa Soomaaliga hirigta maamul waa wax basharka ku salaysan oo dad wada shaqaynaya. ma dhahayno suxubi baan noqonaynaa oo aragtidu waa kala duwanaanaysaa, doodu marmar bay kululaanaysaa, bini aadan iyo masaalixda isku sininba dhinac ka istaagaya. laakiin waxaasoo dhan haddii laysla ogol yahay in la wada shaqeeyo oo sharci lagu shaqeeyo, si sahlan baa xal loogu helayaa. laakiin haddii wada shaqayntaasi aysan u muuqan wax kastoo wanaagoo la samaynayo, haddii la furnaan jirin, dana kala jeeda ay jiraan, wax kasta oo la sameeyo si la isu qanciyo adkaanaysa.
wax kastoo la sameeyo si la isu qanciyo aad bay u adkaanaysa qiyaaskuna waa dhumaya haddii golaha baarlamaanku uu yiraahdo oversight baan leeyahay xukuumaddu waa qiimeynaya oo xukuumaddii wax wanaagsan ka shaqaynayso haddana la dhaliilaayo ama la qabsanayo ama la eedaynayo halkaas waxaa ka soo baxaya in aan oversight uusan jirin macno kaleeto uu halkaa ku hoos jiro runtii macnahaasna wuxuu ka go'an yahay adeegii bulshada loo hayay dabcan in la adeego waxaa aad u xilsaaran waa hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorka iyada naftirkeeda adeeg haysa laakiin hay-adda wakiiladu adeegga ay hayso adeeg si toosa ugu dhacaya bulshada ma aha adeegeedu waxa waaye waa matalaad iyo qareemid iyo oversight iyo inay wax saxdo iyo inay wax toosiso hay-adaha kale oo adeegga fulinaya dabcan madaxweynuhu inkastoo uu golaha wasiirada u guddoomiyo laakiin haddana sida dastuurkii xeerku uu dhigayo waa head of state statekaasuu madax ka yahay marka golayaashu dhinac kale marka loo fiiriyana way u siman yihiin oo waa inuu ilaaliyaa laga rabaa oo sharciga uu ku ilaaliyo dastuurka intaa marka laga soo tago oo soomaalinimo loo hadlo hadda dad ahlo oo degaan wada deganna dhinac kale marka laga fiiriyo oo habka Soomaaliya hadda u dhisan tahay waa state isri iyo ood wadaag ah markaan afka si fiican ugu ballaariyo marka wax lagu kala tagi karo way adkaanaysaa dhinac walbaba dawladnimaduna waxay ku dhisan tahay in la wada shaqeeyo ehelnimada iyo dadnimadana waxay ku dhisan tahay in la iskaalmaysto islaamnimaduna waxay ku dhisan tahay tacaawunu cala albirri wattaqwa marka way yaraan kartaa khilaafka sida kelmadda khilaafka af Soomaaliga iyo Carabiga farqiga u dhaxeeya iska qabsashada khilaaf ma aha kala aragti doonaanta khilaaf ma aha khilaafku waa wax keeni kara in masaalix guud oo caam ay burburto marka tan la diidayo oo ama islaamnimadu diidayso ama dawladnimadu diidayso dawladnimada khad ahmar waxa uu ah in laga xadgudbo dastuurka oo wax keeni kara burbur kululaanta Soomaalidu waxay abuurtay inuu nin walba sharciga gacantiisa ku wato laakiin su'aasha waxa taalo waxay maxaa laga dhaxlay foolxumada Soomaaliga ka taal maanta laga dhaxlay 30 years in dadku heshiin la yahay inay ismaamulaan Puntland aad baan runtii dadka ka soo shaqeeyay oo waliba odayaasha dhaqanka ay aasaas u yihiin oo Ilaahay ku ilhaamiyay kuna guuleysteen inay ismaamulaan ismaamulkaas kooban oo Puntland ay haysato waqti iyo maal iyo nafba waa la geliyay in sidaa loo ilaaliyo haddana dabeecadda bini aadamku sida ay tahay in mar walba xun baa jirta inta la rabo marka gacanta in la qabto haddii kuwii qaban lahaa ay hor ordaan waxaa soo baxaya foolxumaa soo baxaysa oo dawladnimada runtii iyo dadnimadaba aanan u wanaagsanayn marka waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idin ka dhigo sida la sheegay in marxaladaas laga gudbo marxalad caafimaad qabto loo gudbo marxalad wada shaqeyn loo gudbo marxalad isla xisaabtan aan turxaan lahayn isla xisaabtanku waa wax wanaagsan waana wax dawladnimada ku jirayso baarlamaanka kaliya ma aha cid xisaabtanto dawladdu ruuxadeeda isla xisaabtamaysa madaxweynuhu wasiiradu waa la xisaabtamay wasiiradu agaasimayaasha waa la xisaabtamay agaasimayaasha shaqaalaha ku hoos waa la xisaabtanku qof walba xil baa saaran qof aan qof la xisaabtamayn male ilaa qofka ugu hooseeya marka fahamka dawladnimada waxaan rajaynayaa inkastoon Soomaaliya inteeda kale ka badbaadnay haddana dariska hadda mar waa ku dayanaysa oo Soomaaliya guud ahaan marka la fiiriyo habka dawladnimadu dhaawac baa ku jira fahamka lagu joogo iyo fahamka lagu shaqeeyo dawladnimada farqi baa u dhaxeeya
marka taasna waa tixgelinaynaa oo marxaladda aan marayno wax ka duwan ma qaban karno laakiin waxa la rabaa sagaara inteeda waa ku duqwaaliyay marxaladda aan joogno inaan mas'uul ku noqono marxaladda ay Puntland joogto inay kaga duwanaato inta kale in la dareemo waa muhiim in 22 sano oo ismaamul ah oo kala dambeyn ah oo khaladaadkeeda iyo khilaafaadkeeda wadatay in la xakameeyay maanta waxa laga sugayaa in ay ka tallaabo dheerayso deegaanada fursadaas aan hore u soo helin laakiin hadda amaamadka ku jira waxa la rabaa Puntland in ay wixii iyada wanaaga ay samaysay ay la wadaagto walaalahooda kaleeto sida haddaba dhacaysay oo markay masaa'ib ku dhacaan ama muqdisho ka dhacaan ama tiid beledweyne ugu dambeysay dadka reer Puntland ay gurmad u fidinayeen ayaa la rabaa hay'adaha dawladana gurmad maamul inay fidiyaan oo isteediyada kaleeto wixii ay ku khibrad dhaamaan dhinaca shuruucda iyo dhinaca xeerarka iyo dhinaca agabka maamul manualka material badan bay wasaaraduhu haystaan oo ay ku caawin karaan wasaaradaha kaleeto ee dhismaaya tababaray bixin karaan sida iyagaba tababaro loo soo siin jiray wax badan baa la isweydaarsan karaa marka waxa aan rabno inaan la wadaagno dadka kale walaalaheena ah waa wax annagu aan bixinayno markaan waxaan isleeyahay institutionada aan dhisno weyga kaliya noo furan waxa weeye dalkan inaan dhiirigelino nidaamka democratizationka iyo in dadka la doorto oo wax lagu saxo haddii ay wax khaldanaayeen representationka lagu saxo halkaas aniga aragtida siyaasadeed aan isleeyahay waa loogu gudbi karaa caqabadaha iyo dareenka jira waa taas waxa kale oo muhiim ah dhulkan Puntland midnimadiisa in la ilaaliyo la isku hayo oo noqdo mid u wada adeega bulshadiisa aragtiyaha kala duwan aniga khilaafku ma tilmaamay aragtiyaha kala duwan ee abuurmi karana wada hadal iyo isqancin looga gudbo maraaxishaas waxaan aad u rajaynayaa haddii ilaahay ka dhigo in jawi degan oo mustaqbalka u horseedi kara dadka reer Puntland inay adeeg kay haystaan wuxuun dhaama inay helaan oo dawladda aragtideeda iyo qorshayaasheeda emphasize ka saarayso ay fursad u hesho inay ku shaqayso waxaan aad ugu kalsoonahay haddii wada shaqaynta hadda la wada ballan qaaday oo qof walba aan rajaynayo inuusan kaga aragti duwanayn odayaashii halka ka hadlay oo ah dad isku maslaxada doon wada saaran shaqo isku mid leh oo inay dadkooda u adeegaan ay tahay waxa loo igmaday in aan isu qaabayno hab maamul oo gaarsiin kara inaan adeegaasna laga sugayo inaan fulino aragtiyaha kala duwanna aan u helno hab ka duwan 10 bilood la soo dhaafay sidaan u maamuleynay si ka duwan oo si dhaba loo wada hadlo oo loo wada shaqeeyo oo la isugu yimaado kulamo formal iyo kuwa informal oo lagu la fuguraayo xaaladaha jira waan ku kalsoonahay haddii niyad wanaag jirto waxa lagu kala aragti duwan yahay inay aad u koobnaan doonaan inta lagu kala aragti duwan yahay xal muqnaca laga heli doono haddii niyadu ay fiican tahay oo tartan iyo xilniftanku meesha laga yareeyo waxaan qabaa si kale loo dhigo oo wasiirka iyo xildhibaanka isku deegaan ka yimid si wada jiro midaysan deegaanka hawada matalan oo xaaladooda ha wada qiimeeyaan oo golayaasha dawladdu de loobi baa ka jiray waa taas ceeb maahane kelmad fiican hadda ka bartay Puntland oo qareemid ya advocacy da kelmadaas waagi hore ma jiri jirin marka qareemid inay noqoto in loo qareemo oo wax loo raadiyo oo laga hadla xaaladooda ceeb ma qofka constituency-giisa in uu soo bandhigo hay'adaha dawladda oo uga loobi gareeyo waa shay dabiici maxaa yeelay waxa laga yaabaa hay'adaas inaysan warba ka haynin xaaladda xagga ka jirta qofka markuu mas'uul yahay wax walba ma wada ogaan karo oo xaqiiq weeye intuusan mas'uul ka noqon scope-kiisa waa koobnaa meelo yar buu ku wajahnaa laakiin markuu mas'uuliyadda wasaaradda yimaado ama wasiir noqdo ama agaasi noqdo de scope-kiisa waa ballaaranaya waxa laga rabaa Puntland oo dhan marka wuxuu ku khasbanaanayaa deegaan walba iyo baahiyihiisa iyo duruufihiisa inuu si gaar ah ula socdo marka ma wada kari karo marka dad deegaanka ka socda inay u yimaadaan oo ay u soo bandhigaan xaaladda jirta
waa shay wanaagsan oo runtii la rabo iyadana inaysan loobigu isku bedelin pressure waa kala duwan tahay inaad ka loobigaraysid oo sheegtid iyo inaad pressure ku saartid in waxaa la sameeyo farqiga u dhaxeeya waxaa laga yaabaa wasaaraddii inay capacity-gii ama qorshaheedu uu ka hor imaanayo mararka qaybtood marka as long as dad Soomaaliyeed wax loo raadinayo waa wax fiican laakiin waxaan u maleynayaa waxa loobiga laga galo dadka wax loo qabto kaliya ma aan wax kale oo ku jiraan Soomaa waxyaabaha kale oo loobiga oo aan ku jirin wax qabadka iyadan in la yareeyo oo mararka qaarkood xamaasadda iyo caadifada abuuri karta dadkeena iyo deegaankeena iyo dawladnimadeena waxa u fiican wada jir iyo isku kalsoonaan iyo isu cudur daarid mararka qaarkood xataa qofku isoo khaldan in loo cudur daaro u baahan yahay oo laga garaawo mararka qaarkood duruufaha haysta waxaan aad uga mahadcelinayaa in qadadan soo ajiibay waxaan aad uga mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaasha baarlamaanka iyo maxkamadda iyo akhyaarta kale halka joogta waxaan ku faraxsanahay intii hadda la qadeynayay aan dhageysanayo miis walba busy buu ahaa dadka ruuxadooda waa kala mashquulsanaa isma arago aad loo sheekaystay marka naftirkeeda intaasaaba hadafka laga lahaa qayb ka mid ah in dadku is arko oo is waraysto oo sida loo qorsheeyay in loo wada fariistana aad buu u fiicnaa dadku is dhex galo oo waan rajaynayaa kulamo wada shaqo oo intaan ka ballaaran inaan qabsanno annagu ku qurxinayna mas'uuliyaddeena iyo adeegga ay bulshadeena naga sugayso waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa xafiiska madaxtooyada oo runtii hawshaan soo qaban qaabiyey oo waqtiga kooban ee lagu gaarsiiyey siday u agaasimeen oo uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idan ka dhigo in page cusub oo la furnaana aan galno annagana waxaan diyaar u nahay xafiiska madaxtooyada waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ula shaqeyno golayaasha oo dhan si dhow inaan ula shaqeyno oo ayna noqon golayaashu golayaal laysu maro marka golo walba in tixgelintiisa iyo wada shaqeyntiisa la xoojiyo waxaan rajaynayaa haddii ilaahay inaan si dhow wada shaqeyn doono aad baad u mahadsantihiin warbaahinta Gada Times